السلام عليكم. waxaa jira aalado fara badan kuwaas oo kulmiya malaayiin bulsho ah. waxaa sidoo kale jira dadyow aad u fara badan oo ka sameeyay lacag. intaanan u guda gelin muuqaalkan, haddii aad xiisaynayso inaad wax badan ka ogaato, waxaan si weyn kaaga codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto una share garayso asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale. waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga. degalka lagu magacaabo YouTube-ka waxaa jira dadyow badan kuwaas oo ka sameeyay lacag aad u badan. haddaba xilima ayaad lacagta ka samaynaysaa? halkees ayaad ugu hagaagaysaa lacagtaas? waa maxayse shuruudaha ay ku xidhan tahay lacagtaasi? leegtan lagu magacaabo YouTube-ka waxa aad si fudud uga dheehan karaysaa hadba muuqaalada aad xiisaynayso. waana sababtay in ay balaayiin bulsho ahi ku xidhnaato. waxaa xaqiiqa in haddii aad YouTube-ka isleedahay si degdeg ayaad uga helaysaa lacag, in ay tahay fikir qaldan loona baahan yahay inaad maskaxdaada ka saarto, waayo waxaa loo galaa YouTube-ka halgan aad u dheer. barnimo iyo meel kuma arkaysid lacag bilaasha oo iska taala meel dahab lagu hordaadiyey wadooyinka hortooda, amase deeman lagu duldaadiyey buuraha dushooda. wax walba oo aad qabanaysaa waxa uu kaaga baahan yahay dadaal dheeraada, haba ahaado YouTube-ka. waxaan xaqiiqa dadaalkaasi inuu kuu keenayo midho dhal aad u fiican. dadyowga qaar marka ay arkaan YouTubero ay degalkooda ku xidhan yihiin bulsho aad u fara badani way niyad jabaan, sababtoo ah ma haystaan bulsho badan. laakiin taa waxa beddelkeeda ah in wax walba laga soo bilaabo bayska, sababtoo ah YouTuberada waaweyni waxaa jirtay waqti ay ahaan jireen 0 views, laakiinse waxaa jirta inay badiyeen dadaalka bayskoodiina ay si fiican u soo dhigeen oo ay isku dayeen inay raali geliyaan bulshooyinka ku xidhan kanaalkooda. xitaa haddii aad soo gelisid waxyaabo aad u muhiima bulshadana saameyn ku yeelanaya, balse ay dhibaatada jirtaan noqoto in aanay dad badani kuu daawanayn, ha niyad jabin, sababtoo ah waxaa dhici karta in berri ka maalin ay muuqaaladaadaasi noqdaan kuwa guulaystay, aadna gaadho hiigsigaagii iyo himiladaadii aadka u fogeyd. waxaanaad iska ilaalisaa inaad isticmaasho muuqaalada ay dadku leeyihiin. magacaygu waa Qaalib Axmed. waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga.